بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan idil ahaantiin badawadayaal saaxiibayaal halkani waa bartaan YouTube-ka kuleenahay qaranka TV anigoo Axmed Nuur Suufi taariikhdu waa 3 bisha 9aad sanada 2021 fiidnimo ay jimca sii baxayso oo ku soo dhawaada wararkeena qodobada wararkeena aad ku daawo doontaan aamintan waxa kamid ah ilaahay ha u naxariistay dhimashada Igraan Tahliil oo ay shalay shaacisay hay'adda NISA oo hadalhayn aad u badan dhalisay kooxda al-shabaab oo dilkaasi lagu eedeeyay oo iyaguna beeniyay iyo mucaaradka Soomaaliya gaar ahaan midowga musharaxiinta oo ka dhex kalluumaysanaya geerida Igraan Tahliil isla markaana siyaasad ka raadinaya warbixin ku saabsan midowga musharaxiinta shacabka Soomaaliyeed oo dalbanaya in kiiska gabadha Igraan Tahliil ah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo muddo 2 bilood ka badan la la'aa kadibna shalay la shaaciyay geerideeda in markaasi baaritaan rasmi ah lagu sameeyo isla markaana laga helo tafaasiil dheeraad ah isla wararkeena waxaad ku daawo doontaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb qaatay aaska ama janaasada Allah u naxariistay mid kamid ah halyeeyadii Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay daafaca badeena ee nagu haysato Kenya kaasoo si lama filaan ah u geeriyooday sidoo kale wararkeena waxaad ku daawo doontaan daawadayaal siyaasiyiinta mucaaradka oo dilka Igraan Tahliil raba inay barmadow uga dhigaan dawladda haatan talada waddanka haysa gaar ahaan madaxweynaha siyaasi arintaasi ka hadlay iyo midowga musharaxiinta oo codsaday inuu madaxweynuhu arintaas ka hadlo iyagoo horey uga saaray siyaasadda iyo inuu waliba wax galaan gala ku yeesho isla markaana horey u dalbaday inuu banaanka ka joogo maadaama xilli doorashada la marayo qodobada isdiidan ay ku dhawaaqayaan mucaaradku oo jahwareer ah isla markaana iyagu markaasi dhibaato isku sameynaya ayaa wararkeena ku daawo doontaan intaan soo gudagalno waxaan ka codsanaa inaad barteena YouTube-ka subscribe tiraadaan gambaleelkana furataan like saartaan muuqaalkan siina shargareysaan oo la wadaagtaan saaxiibadiina si ay markaasi noogu soo biiraan waa tahay aynu ku horeyno daawadayaal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa masjidka isbahaysiga islaamka kula tukaday salaada janaasada marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo lagu aasay qabuuraha Sheekh Cali Suufi ee degmada Warta Nabadda Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo marxuumka oo ahaa haliyey kun suntanaad jacayl howlkarnimo iyo wadaniyad iyo waliba aqoon ayaa door weyn ka soo qaatay difaaca kiiska dacwadda badeena ee horyaalay maxkamadda cadaaladda adduunka isagoo oo ka tirsanaa lafdhabarna uu ahaa guddiga qaran ee daafaca badeena Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cumar Saalixi waxa uu ahaa khabiir ku takhasusay maababka badaha iyo dhulka isagoo oo aqoontiisa iyo aragnimadiisa uga faa'iideeyay difaaca badeena waxa uu ahaa shakhsigii soo ururiyay wixii maabab iyo heshiis ahaa ee ku saabsanaa badeena kuwaas oo inaga lumay xilligii burburkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo mas'uuliyiinta kale ee marxuumka ku tukaday salaada janaasada alle uga bariyay in uu naxariista janno siiyo isla markaana samir iyo iimaan uu ka siiyo qoyskiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday marxuumka ayaa shaashadaha ka soo dhex muuqday dhowr mar oo la qaadayay arinta kiiska badda waxaana ugu dambeysay Maarso dacwadii ugu dambeysay markaasi arinta badda kiiska ku saabsaneyd isagoo khudbadii ugu dambeysay halka ka jeediyay balse nasiib darro aan noloshu aysan ku simin inuu markaasi ogaado ama marxaati ka ahaado natiijada badda si kastoo ahaataba wuxuu ahaa haliyey ummadda Soomaaliyeed u soo halgamay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanteen waan wada dhimanaynaa haddaba daawadayaal waxa ugu weyn ee saacadihii la soo dhaafay la hadal hayay ayaa ah geerida Igraan Tahliil oo raq iyo ruux la la'aa waa Igraan Tahliil Faarax oo ay ku dhawaaqday hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed Igraan Tahliil Faarax oo ay ahayd xubin ka tirsan hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka warkeedana la la'aa laga bilaabo 26 bishii 6aad sanada 2021 laga soo bilaabo ilaa iyo shalay ayaa ugu dambeyntii hay'adda NISA waxa ay sheegtay in ay gabadhaasi u gacan gashay kooxda argagixisada ee al-shabaab kadibna ay dileen hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa intaasi raacisay in galbaariseedka kiiska Igraan faahfaahsan ay ku wareejinayaan hay'adaha ay khusayso waxayna sidoo kale ay hay'adda sirdoonka qaranku la wadaagtay warbixinta sida ay sheegeen qoyskeeda tan iyo markii la shaaciyay arinta kiiska Igraan Tahliil Faarax inkastoo tafaasiil iyo cadeymo kale aysan la socon shacabka Soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay su'aal galiyeen arinta dhimashada gabadhan oo muddo la la'aa taas oo aysan sheegin kooxda argagixisada ee al-shabaab waxayna dadka Soomaaliyeed ay sheegeen in loo baahan yahay waa qaarkood cadeymo dheeri ah balse dadka raadinaya xogaha khuseeya Igraan
tahliil faarax oo arrinteedan indhaha laga qarsan karin maadaama tan iyo intii la la'aa hooyadeed iyo xubno ka tirsan qoyskeeda ay baadigoob ku jireen har iyo habeen ay ooynayeen oo ilmadu ay ka qubanaysay ay taagnaayeen saxaafadda iyo warbaahinada isla markaana aan indhaha laga qarsan karin waxay shacabka Soomaaliyeed qaarkood kuwa sida wanaagsan wax u doonaya ay ka codsadeen dawladda iyo waliba hay'adda laftigeeda inay soo saaraan cadeymo dheeri ah oo arrintan muujinaysa si loogu qanco sidoo kale daawadayaal xubno mucaarada iyo shakhsiyaad iyagu markii hore dawladda u raadinayay dhaliilo ay ku helaan iyo waliba jaanisyo markaas isla markaana marmarsiyo u raadinayay ayaa dhimashada iyo geerida gabadhan ee lagu dhawaaqay balse aan cadeynteeda la soo gudbin waxa ay markaasi ka dayayaan siyaasad kaaga daranke kooxda argixisada ee al-shabaab oo arxanlaawayaasha isla markaana ku goodi jiray ama ku faani jiray dhammaan dilalka ay geystaan marka laga reebo qarxyo dhowr ahaa oo ay ka maquurteen amaba ay ka aamuseen sidii qaraxii Soobe iyo waliba qaraxii Shaamow iyo qaraxyo kale iyo waliba xubno kale oo ay khaarijiyeen ayaa ganafka ku dhuftay warka ka soo baxay hay'adda NISA waxayna sheegeen in ay markaasi waxba aysan ka jirin oo kooxda argixisada waxa ay ku dhawaaqeen in aysan gacantooda ku bixin sida uu xaqiijiyay sargaal u hadlay kooxda amniyaadka ee qaabilsan madax jabinta laakiin kooxda al-shabaab ma ay sheegaan run oo sidii ay doonaan ayay yeelayaan si ay u helaan si ay markaasi uga faa'iideystaan jahwareer iyo xiisad siyaasadeed oo ka dhaca dalkeena Soomaaliya ayay been u sheegi karaan xubno aad u badan oo ay dileen ayay qariyeen sidoo kale qaraxyo waaweyn oo kacdoon shacab uu ka dhashay sidii qaraxii Soobe oo dad aad u fara badan ay ku dhinteen qaar fara badan ay ku dhaawacmeen ayay sidoo kale aysan sheegan oo ay ka maquurteen waxaana ay markaasi dhowr jeer ay adeegsadeen siyaasado si kastoo ay ahaataba dilka iyo dhimashada gabadhan Igraan Tahliil Faarax oo ilaa ay hadda xubnaha qoyskeeda ay ka sii walwalsan yihiin dhawaaqa ka soo yeeray dawladda ayaa waxa uu markaasi sidoo kale ay jaan siyaasadeed u arka kooxaha mucaaradka ah si gaar ah midowga musharaxiinta qaarkood madax kamid ah oo dalka soo hogaamisay lagu tuhmayo inay khaarijiyeen xildhibaano iyo mas'uuliyiin sarsare iyo saraakiil iyo dadka aragti duwanaa ayaa iyagoo haatan wax iska dhigayaan kuwa naxariis badan oo gabadhan markaasi u naxariisanaya si kastoo ay ahaataba siyaasad iyo waliba ka dhex kalluumaysi ku saabsan geerida gabadhan iyo hadalhaynteeda ayaa muuqata dhammaan waxaad moodaa cid kasta oo dawladda ulbooca ugu tukubaysay inay siyaasad ka raadinayso sidoo kale waxaan la iska indhatiri karin in ay Ikraan Tahliil arrinteedu u baahan tahay cadeymo dheeraad ah in loo soo gudbiyo shacabka Soomaaliyeed iyo qoyskii ka geeriyootay si looga qanco geerida gabadhaas ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo maadaama raqi ruux meel ay jaani cirib dhigtay aan la arkin sidoo kale kooxda argixisada al-shabaab haddii ay mar hore dileen aysan sheegan maadaama ay ku faani lahaayeen oo ay tahay sargaalad sida la aaminsan yahay iyaguna ay sheegeenba sidoo kale siyaasiga Cali Yare Cali oo ah gudoomiye xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa Facebook ku duray mucaaradka waxa uu yiri 3 maalmood ka hor waxaan arkaynay kooxdii la baxday midowga musharaxiinta oo leh farmaajo ayaa ka mas'uul ah dib u dhaca doorashada hadii waa farmaajihii 6 bilood ka hor ra'iisul wasaaraha ku wareejiyay dhammaan wixii doorasho iyo amni la xiriiray shacabka kala hadlay telefishinka kadibna baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay mar kale maanta waxaan arkay isla iyagii oo leh madaxweynuhu muu hadlo oo arinta Ikraan Tahliil Faarax weeyaan dabcan yaa islaam ayuu qoraalkiisa sii raaciyay yaa islaam ilaahay ah oo nimankan laba af mid ka keena ama kow in ay madaxweyne farmaajo u soo hoydaan oo ay kala xaajoodaan doorashada amniga iyo wixii la xiriira b ama labo in ay fahmaan in madaxweyne farmaajo uu kowdii bishii May oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamulka ku wareejiyay oo ay gartaan lana macaamilaan halka ay wax ka jiraan waa ka baxay ayuu qoraalka ayuu ku soo gaabiyay si kastoo ay ahaataba dhimashada gabadhan la shaaciyay ayaa waxay dhalisay hadalhayn aad u weyn waxaana la filayaa in markaasi cadeymo toosa ay dawladdu soo gudbiso sida ay shacabku dalbanayaan si kastoo ay ahaataba xubno ka tirsan qoyskeeda ama qabiilka ay ka soo jeedo xanaaqsan ayaa iyaguna saacadii la soo dhaafay dad aan waxba galabsan oo la hayb ah taliyaha ciidamada NISA Fahad Yaasiin ka afduubtay goobo iyo deegaano kala gedisan kuwaas oo ay ka soo duubeen muuqaalo iyagoo sheegay inay u haystaan ama u qafaasheen sabab la xiriira geerida ku timid gabadhan sirgaalka ahayd ee firfircoonayd isla markaana ka tirsanayd ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee NISA Igraan sida dad yaqaan ay ka warameen waxay ahayd gabar aad u daayar aqoon-yahanada isla markaana sirgaal sare oo firfircoon ah kana tirsanayd hay'adda NISA waxbarashadeedii waxay ku soo qaadatay jaamacadeed dalka Kenya
wixii tafaasiil oo ku saabsan dhimashada gabadhan iyo wixii warar ka soo kordha ka daawada ama kala socda wararka warbaahinta qaranka TV aynu idiin soo gudbin doono saacadaha soo socda.